ninbaa saddex wiil dhalay waa nin carbeed maskaxda carbeed baa lagu qiyaasaa ama lagaga hadlaa saddex wiil ayuu dhalay saddexdii wiiluu dhalay mid buu dareemay inuuna isagu dhaline islaantu intay xaaraan samaysay in dembigaa uu ka calool galay saddexdii wiil baa saddex cabdallu u bixiyey cabdilaahi buu yidhi kii hore labadii kale ka dambeeyeyna wada cabdilaahi buu u bixiyey sakaraadkii baa u yimid ii kaalaya buu yidhi inamadaydo waan idiin dardaarmiye intuu ka sii jeedsaday buu yidhi cabdilaahi dhaxalkayga waad leedahay keebuu la hadlayaa lama garanayo saddexdii mid kastaaba wuxuu yidhi anuu cabdilaahi baan ahaa anugii jeedaa cabdilaahi dhaxalkayga waad leedahay buu haddana ku celiyey cabdilaahi dhaxalkayga malihid buu yidhi waa anuu kuma dhalin buu u jeedaa anigu kuma dhalina islaanta meel kale kaa keensatay oo xalaal kumaadan dhalanin buu leeyahay wuxuu yidhi haddaad kala garan weydiinka aan dhaxalkayga lahayn boqor hebel u taga isagaa idin dhexdhexaadiniyo gartaa qaadi doonee odaygii waa dhintay saddexdii inan nin kastaaba wuxuu yidhi ninka odayga dhaxalkiisa leh ee odaygu uu dhalay anigu waan ahay boqorkii bay u tegeen dhexda markay marayaan bay awr arkeen neef geeloo meel ku joogsaday awr bay arkeen meel ku joogsaday mid baa yidhi awrka halkaa ku joogsaday wuu in la'aa labada indhood mid buu la'aa buu yidhi waa caqliga carbeed baa ayaa qisada loo soo qaataa mid kalea yidhi awrka halkaa ku joogsaday wuu lug buu ka dhutiyayey mid kalea yidhi awrka halkaa ku joogsaday wuu daba la'aa hadda awrka uma muuqdo nin socda ayaa u yimid oo awrkii doonaya markay in yar socdeen wuxuu ku yidhi war awr maad aragteen mid baa ku yidhi ma in la'aa haa buu yidhi kii kalena wuxuu yidhi ma daba la'aa haa buu yidhi kii kalena wuxuu yidhi ma dhutiyayey haa buu yidhi maanaan arag bay yidhaahdeen dee ninkii way tilmaameen awrkiisii yaa ku qancinaya nimankani awrkaagii mayna arag waxay yidhahdeen haddaydaan arag sidee baad awrkayga u tilmaanteen buu yidhi waad aragteen idinkaana u teliyey ee awrkaygii waan idinka rabaa buuhi waanan idinka doonayaa waxa dhacay waxay yidhaahdeen annaguba waannu ishaysannaa awrkaagii maanaan arage haddaad nagu qanci weyday inaanaan arag dee kaalay boqorkaannu ku soconno aadba noola tag bay yidhaahdeen boqorkaasi ayna dhexdhexaadiyeen isna wuu raacay iyagoo afara bay israaceen ninkii baa yidhi awr baa iga lumay awrkii iga lumay markii aan weydiiyey way tilmaameen saddex tilmaamood uu lahaa illa'aan iyo dabala'aan iyo dhuti bay ku sheegeen haddana maanaan arag bay yidhaahdeen nimankani boqorow awrkaygii iyagaa u teliyey wayna dafirayaan bal indhaaday googan eeg buu yidhi boqorkii baa yidhi haddaydaan arag aaway kii yidhi ma illa'aa kii baa gacanta taagay war haddaadan awrka arag inuu illa'aa maxaad ku garatay buu yidhi wuxuu yidhi waxaan ku gartay geeduu daaqay baan arkay oo dhinac buu ka daaqay geed aad u magoolay oo uu dhinac ka daaqay baan arkay waxaan fahmay buu yidhi hadduu isha kale qabo inuu dhinacan kalena ka daaqi lahaa ee ishii dhinacii uu isha ka qabay uun ayuu geedka ka daaqayay buu yidhi adigu waan ku fahmay buu yidhi iska tag kii yidhi ma dabala'a awrku ayuu u yeedhayoo wuxuu yidhi inuu dabala'a maxaad ku garatay buu yidhi wuxuu yidhi geelu markuu saalaynayo meeluu ku saaleeyey baan arkay buu yidhi markuu saalaynayo saaladiisa dabadaa kala reebta kolkaa way isdaba gashaayoo in cabbaara ayay saaladu ku sii daadataa buu yidhi waxaan arkay meeluu saalaynayo mar quruu ku sii wada daayey buu yidhi waxaan fahmay buu yidhi dabadii kala reebaysay awrkani inuuna lahayn oo halkaa saaladiisa ayaan u deliishaday buu yidhi adiguna iska teg buu yidhi kii yidhi ma dhutiyayey ayuu yidhi maxaad ku garatay inuu dhutiyayey haddaadan arag wuxuu yidhi waxaan arkay meeluu ku joogsadayoo cagta saani uma wada saarin ee barbar buu ka saarayey boqorkii xukun buu riday odhanaya nimankani awrkaagii mayna arage awrkaagii raadsan ninkii nimankiibuu u yimidoo maxaad doonaysiin buu yidhi waxay yidhahdeen waannu ishaysannaa aabbahaya markuu sii dhimanayey laba inuu dhalay buu sheegay ay dhexlayaan midna inuuna dhexlaynin buu sheegay inaad noo kala sheegto ayaan rabaa ninkii boqorkaa wuxuu yidhi anaa idiin kala sheegiyo isuga hilib ayuu u soo qalay waan idin marti qaadayaa buuhi geel buu u waaday oo ay buu u soo qalay canjeerana waa u soo kariyey maraqna waa u keenay ilmo yaroo carruura oo ay isleeyihiin hadalka ma fahmayo ayuu ag dhigtay si ay sheekadooda uu ugu keeno oo sheekadan uu uga duulo markaa ilmo yar buu ag dhigtay hilibkii markii la keenay iyo canjeeradii iyo maraqii
ayuu midi hadlay wuxuu yidhi boqorkan aynu iskula nimid ee garteenna hayaa xalaal kuma dhalan kii yaraa waa maqlayaa boqorkani xalaal kuma dhalan buu yidhi waaye kii kale ayaa hadloo wuxuu yidhi war hilibka ha taabanina waa hilib ayi'e kii saddexaad ayaa hadlay oo canjeerada gabadh uur leh dubtay buu yidhi canjeeradan laxooxdan aynu cunayno gabadh uur leh ayaa inoo soo dubtay buu yidhi eeg waa caqliga carbeed bay u soo qaataan kii yaraa ayuu boqorkii u yeedhay wuxuu yidhi bal nimanku waxay ku sheekaynayeen ii sheeg wuxuu yidhi nimanku midi wuxuu yidhi boqorku xalaal kuma dhalan midina wuxuu yidhi hilibku waa hilib ayi midina wuxuu yidhi canjeerada gabadh uur leh dubtay boqorku hilibkan waa og yahay inuu hilib ayi yahay isaguna wuu is og yahay siduu yahay oo xantiisa waa hayaa laakiin canjeerada inan aan la guursan caruurnimo uu haysto ayaa soo dubtay warkii buu isidhi xaqiijiyo inantii buu u tegey inantii way dafirtay wax uuroo jiraa ma jira bay tidhi dumar buu u diray oo wuxuu yidhi waa lagu qaawini dharkana waa lagaa saari waana lagu baadhi buu yidhi haddaad qiran weyda wixii jira gabadhii waxaa la soo akiday oo la soo hubsaday gabadhan inay uur leedahay si xaaraanana ay ku uuraysatay boqorkii saddexdii nin buu u yimid wuxuu yidhi aaway kii yidhi boqorku xalaal kuma dhalan wuu aamusayo inuu bad galay ayuu kii ogaaday way is sheegi waayeen markii la sheegi waayo boqorku uu ka gudbo wuxuu yidhi aaway kii yidhi hilibku waa hilib ayi kii baa gacanta taagay maxaad ku garatay buu yidhi hilib ayi inuu yahay wuxuu yidhi hilibka caadiga ah baruurtu jiidhka way ka sarraysaa hilibka ayigana jiidhka iyo lafta dhexdooday baruurtu gashaa bal baruurtani halkay hilibka kaga jirta eeg buu yidhi baruurta lafta iyo jiidhkay u kala dhaxaysaa buu yidhi wuu yidhi adu waad ka baxday xujadaadii kii yidhi gabadhu uur bay leedahay ayuu yidhi aaway kii yidhi gabadhu uur bay leedahay kii baa gacanta taagay maxaad ku garatay buu yidhi gabadhu inay uur leedahay wuxuu yidhi laxooxda naloo keenay dhinac bay buuran tahay buu yidhi daawihii gabadhii markay qooshka ay ku shubaysay daawaha dee uur bay lahayd oo lugteedaa qabanayso si fiican daawaha uma wada gaadhsiinayna dhinac bay kula yar ciiraysay buu yidhi oo calooshaa qabanaysay buu yidhi bal canjeeradan eeg buu yidhi dhinac bay wada buuran tahay waa dumarka uur kale ayay astaan u tahay buu yidhi markaa inay simi kari waayaan kiina wuxuu yidhi waad ka baxday kii saddexaad buu yeedhay oo wuxuu yidhi xaggeed ka keentay adigu boqorku xalaal kuma dhalan aaway waxba ku yeeli maaye caddee buu yidhi warkaa kuu yahay hays sheego uba soo baxay labadii kale markii la helay dee wuu iska cad yahay kuu yahay waxba ku yeeli maaye buu yidhi maxaad u socoteen buu yidhi inaadna kala xukuntid oo ka dhaxal kale iyo kuwaan dhaxalka lahayn inaad kala sheegto odaygaasi wuxuuna dhalin oo xaaraan ku dhashay buu yidhi saddexdiinna ka aniga i gartay ee yidhi boqorku xalaal ma aha kaa ayaan horta dhaxalka lahayn buu yidhi waxay yidhaahdeen noo sababee sabab noo sheeg inuuna kaasi odayga dhexlaynin uuna xalaal ku dhalan noo sheeg waxaanu ku garanno dadka isku nooca isyaqaana buu yidhi dadka isku nooca ah ayaa isyaqaana kolka waxa weeye dadkii isku nooca annaga isku nooca buu leeyahay markaa kay gartay isku nooc baanu nahay waxaan uga soconnaa markaa waxaa la yidhaha boqorkan halkuu ka maagay ee uu dee yidhi xalaal kuma dhalan maxaad igu garatay buu yidhi inaanan xalaal ku dhalan maxaad igu garatay wuxuu yidhi ilmo yar baad naag dhigatayoo eeg nin wax basaasaya ayaad ahayd buu yidhi haddaad aragto dadka warka u kala qaada kolka dadka xalaasha ku dhashay uma badna waayo nin xalaal ku dhashay waxa weye wuu xishoodaayo wuxuunbuu xeeriyaa isagoo xog badan haya ayuu is-ilaaliyaa carabtu waxay ku maahmaahaan suduuru laxraar qubuuru lasraar bay yidhaahdeen dadka xorta ah laabtoodu waa halka sirta lagu xabaalo nin xor ah haddaad sir u sheegato wuu la dhimanun wuu la godgeli uun xataa haddaad isku dhacdiin kaga aarsa sirtan kuma jirto طريق إلى الجنة.